برنامج وصلي على انك خبل هاي تفضل اخي ويدي سؤال هذا تليفونك اسك جاب تي في اسك جاب تليفونك هذا الو هلا وكم مغلا ها وذكر شيء وصلي على معنا برنامج قبل المن هذا تي في في داونيسا تي في داون انا كل هذا لايف اوكي السلام عليكم شو وصلي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وحارب انا سؤالك يا شيخ هاي سؤال شيء حواي الحمد لله sometime waxaa dhacda dowladda iyo xarabaa mucaaradka waa gartay tan mucaaradka marada waxaa jira arrimo masiiriya marka laga hadlaayo mucaaradka badan waxay la saftaan markii kala badalada Kenya iyo Soomaaliya oo kale waxay la saftaan maxay aheeday in Kenya mar ayaga ku xumeynay dowladii waa gartay taas shariicada islaamka maxay ka qabtaa fiiri shariicada islaamka wax kasta maxay ka qabtaa lama dhaho akhi haddaynu waa ka hadlana arrintaas arrimaha masiiriga ah in laga mideysnaado waa muhiim sida mucaaradka ugu eedeynayna leena waa ina masiirigaas aad taageertaan dawladdu waxaan leenahay adigoo dadkaaga gudaha ah heshiis la ahayn dibadda cadow banaanka ah waa inaa u jabtida laga yaabaa marka daarti inaad guul ka gaartid jabha daakhiliya hagaaji ka bacdi jabha daakhiliya aad taas ayadana leenahay nasiixadaas ahayna kaliya anaga wax kale ma hayn su-aasha labaad aan ku weydiina waxaa fadiilada sheekh daradoo kale waxaa wadanka ka dhaca mudaaharaado ay dad siyaasiyiin ay soo kiciyeen nacam dadkii mudaaharaadii qaar ka mid waxay soo kiciyeen in dad kale oo qoryaal wato dad dowladii wixii ka hor timid saas darteed meesha ku dhintay waa gartay dadkaas la kicinayo ama barnaamijka haloo adeegso si uu ku gaaro jaranjadiisa ama meesha uu ku kor lahaa oo meesha ku tegi lahaa ay wuxuu sameeyey dad in lasoo kiciyo dad lagu soo horjeedo akhi wax kasta horta diinta islaamka looma bandhiga mogta arrinta siyaasiyiinta iyo oo raadi muqdisho wixii laga sheegay ay weydiinaysaa aniga fiiri dhacdadaas dadka jooga in la warsado aa wanaagsan diinna shaqa السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته sheekho maxamed waxaa iiga sheekeysay wakhlal oo ay yireen wakhlal miya marka afrika joognay wakhlal maxaa la lo miya la gaday loo xaafada marka la geeyay waagi la qal raw locdii waa dhacdno marka dhacdo locdii mindii waa la gaarsiiyay maxaa wakhlalkaas waa dhacday locda dhulka ku dhacday maano locda looda macnaha ma jirneed may markii soo gada waa fiicneed no haye maxaa dhul ku rid marka markii xaafada la geeyay maalintii labaad la qal raw dhulka ku dhacday shuruudda oo asalka ah udxiyada iyo markii laga hadlaayo waxaa waaye inuu ceeb saliim ka ahaado neefka hadduu jabay ma jabay may wax jabay maxaa markii la soo gada waa fiicnada markii خلاص hadduu u fiicnaa dhulku waa fariisan karaa neefka waa arrintaas dhaqaatiiri u baahan tahay asalka insha allah waxaan leenahay mar haddaa ceeb cad aan la haynin waa jirtaa insha allah waa jirtaa insha allah taasaan ku idnaa sheekh dhinaca kale halow Please hang up and try again. qofkaas waxaan filaya qadka meel waa ka go-ay dhinaca kale شيخنا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا لو سؤال ربي إنك ويدي المريا هاي mid waxa waaye horta nimanka musharaxiinta madaxweynaha ee ma fahanti ها waxa waaye musharax waxa loo baahan yahay inuu dhaho ani waxa cod kor u qaad waxay dhaqi ya cod kor u qaad oo ku maqlaa ha musharaxiinta markii ay dhaayaan macnaha waxa la rabaa inay dhahaan ani waxa baan qabanayaa wadanka waxaan qabanayaa waxaan sameeynayaa kana dhacaya dawladdaasaan la heshiinayaa dawladdaasaan cadow inuu aan la dagaalaya laakiin musharaxiinta oo madaxweynaha maanta dhan daba taagan madaxweynaha qaa'in waay madaxweynaha dictator waay madaxweynaha kan waay oo dhahayaan waana la soo weeraray qofku waa isdifaacaya de markaa caynaysa laakiin markii laakiin musharaxnimadaada wax banaanka aad soo dhiganaysa cid ku imaanaysa male waa lagu waardiyanaa shacabka hataa ku hiilina laakiin inaad dheed madaxweynaha dictator waay mingis farmaajo waay waxaas ceeb waay ma ficna danihiina ka hadla dheh iska dhaafa madaxda ku mashquulina tan kale waxaa ku sheegaya sheekh maxay ahayd horta wadankan waanu weerariyay annaga shiinaas haddaan u dhiibna ka waran aan ka ijaarno oo degadaha oo dhiso soomaaliya wadanka oo dhiso ilaa 40 sano qandaraas aan ku siino shiinaha ama america ma fahmaysaa ilaa macnaha oo wadankii ay dhisaan laami ay saaraan ilaa annaga wax waa qaban weyne ma baan in ayaga aan u dhiibno oo 40 sano wadanka aan ka kirayno shaqada salaamaya بارك الله فيك أخي سؤال ديني ما حقيقة ساشوا داهي وعمل وي لكن وانا كجرت وانا في عنا كجرت وركا وإن لقاته مهم وتاتسك مسلم كه وانا ذا مركز الدين النصيحة لي الدين تو وانا ذا سوا مهم لكن صومال لقموا وين تدبوا ناس تقولي إن شي ناس أو حقول ابنه وعملنا حناك وحكاك يعني حماس
ilaahay dembigeena dembiga ha dhaafo waxaan filayaa su-aashaas ayaa ugu dambaysaa laleeyahay haddaan wax qalday nafteedii shaydaani ka ahaatay haddaan saxna tawfiiqda ilaahay subxaanaka allah wabxamdika ashhadu an laa ilaha astaghfiruka atuubu weydiinayaa masalan ba labada qof oo isqabta markii maaragtay jamaaci waxsaas ay samaynayaan waxyaabaha hadalka oo ku saabsan oo iyagoo jamaaci wixii samaynaya camal ma banaan tahay waa banaan tahay nacam waxaado kelimad hadday ahayn kalama oo diinta kasoo horjeedo laakiin wax jaceylkooda iyo raaxadooda muujinaya deeta laa bas dhib ma lah wax saas un waaye bow macaana baay wax saas waa fiican tahay waaba loo baahan yahay kaas waa wax fiican waay